xaqa waalidka uma baahna inaan wax badan ka iraahdo. Hooyo waa midda lugaysa kaba la'aan, qorraxdoo kulul, dhabarkana kugu sida, ayadoo doonaysa inay cunto kuu raadiso ama biyo kuu keento ama ay kuu raadiso waxaad ku hargashid. Hooyo waa midda duurka gasha oo xaabada dusha ku soo qaada, adigana horaadka kugu sida, ayadoo saas ku faraxsan oo ka walwalsan maanta waxaad cuni lahayd. Hooyo waa midda qorraxda fadhida ee bacadlaha fadhida, yaanyada iibisa, gambada iibisa, suuqa taagan si ay cunto kugu soo hesho. Hooyo waa midda awoodda u leh ayadoon awood lahayn oo nafaqa darro ka muuqata inay dusha kugu qaado. Waad u jeedaan hooyadan 2 carruuray dhashay ayay sinta ku sidaa, midna tafta ayuu haystaa. Ilaahayow hooyooyinkeenu dambi dhaafo u naxariiso. Hooyo walaalayaal, kuwa waxaa jira nasiib darrayaal ah oo hooyo ka oohiya. Qofkii hooyo ka oohiya, Ilaahay ha ka oohiyo. Qofkii hooyo ka oohiya ha ogaado in adduunka uu ku oyn doono ama aakhiro Ilaahay kula xisaabtami doono. Walaalayaal, hooyo waxay naga mudan tahay inaan u ducayno oo sujuudda ugu ducayno. Bal isweydii walaal, goormaa kugu dambaysay oo aad hooyo u ducayso oo aad sujuudda ugu ducayso? Walaal, soo ma ogid inaysan carabi badan kaaga baahnayn oo waxaa kugu filan inaad tiraahdid Allaahuma ighfir liummii, Allaahuma ighfir liummii, Allaahuma ighfir liummii. Ilaahow hooyaday u dambi dhaaf, Ilaah hooyaday u dambi dhaaf. Intaas haddaa ku celcelisid walaal, hooyo ducadaada way gaaraysaa, hadday nooshahay iyo hadduu Ilaahay oofsadayba. Waxaanu laga baahan yahay inaan maanta bilaawno. hadday awalba xumeyd ama aan xiriirkeena fiicnayn ama aan hooyo u ducayn jirin, hadda waa inaan bilownaa. ilaahow hooyo u dambi dhaaf, ilaahow hooyo u naxariiso, ilaahay u dambi dhaaf qof kasta oo muslin ah oo maqla maqdacan oo sii faafiya oo hooyo jacayl u qaba dartiis walaalihiisa kale sii gaarsiiyo. hooyaha la wanaajiyo aakhiri adduunba. ilaahay